mahad ilaahay baa iska leh. mahadda labaadna intii dadka Soomaaliyeed maslaxadooda ka talinaysa gaar ahaan deegaanka Puntland dadka ku hawlan inay waddankan uu yeesho maamul hirgala oo siday u doorteen inay yeeshaan maamul u adeega bishii August 1998 weli heegan u ah oo hadda maanta caawa halkan aynu isugu nimi inaan ku dhawaaqno maalinta uu dhici doono shirweynaha dawladda Puntland dadweynaheedu kaga soo qaybgalayaan wakiilada ah inay ku ansixiyaan dastuurka Puntland oo qabyada ahaa muddo soo qabyahana lagu shaqeynayay. arrintan sidaa ka warhaysaan waxa weeye ilaa bishii kambeynka oo ka bilaabay halakan sanadkii 2008 bilow aakhirkiisii maamulka hadda aan halakan anu madaxda ka ahay ragga laga doortay baarlamaanka ugu horeeyay dabadeedna oo baarlamaanku doortay aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka ballanqaadkii aan qaadnay wuxuu ahaa oo dadka hortiisa aan ka ballanqaadnay ilaahay hortiisa ka ballanqaadnay wuxuu ahaa inaan dadka Soomaaliyeed oo reer Puntland aan ku soo celino gacantooda qof ahaan awoodii sharci oo ilaahay u dhaliyay oo ah inay madaxdooda iyagu ay ku doortaan gacantooda iyagoo maraya dariiqa axsaabta badan. ballanqaadkaas oo ka mid ah ballanqaadyo badan oo kale oo in badan oo ka mid ah aan fulinay oo hadda maanta halkan aanan ka tirin karayn waa u socdaa ilaa sanadkii dhaweyd oo dhan geedi socodkiisa waa socdaa ilaa hadda aan ka soo gaaray inaan maanta caawa ku dhawaaqno halakan inuu shirweynihii lagu ansixin la Constituency Assembly lagu ansixin doono dastuurka dawladda Puntland si rasmi ah inuu dhaqan galo lagu ansixin doono 15 bisha soo socota iyadoo ay wakiiladaas ka kala imaanaya dadweynaha oo si cad oo aan caad ku dahanayn dadka degan dawladda Puntland degaamadeeda ay ku soo xulanayaan wakiiladooda uga qayb gali doona shirweynahaas. Constituency Assembly-gaas aynu ku samaynayno sidaa waxaa qoraya dastuurkeenna oo qeexaya qodobkiisa 141 faqradda 1 ayaa qeexaysa. sidaa haddeerba intii shirweynaha Garowe loo fadhiyay shirkii 1 iyo shirkii 2ba lagu go'aansaday dastuurka dawladda federaalka ay yeelan doonto sanadkan gudihiisa oo gacanta lagu hayo weli wax ka dhiman yihiin isaga laftigiisa lagu ansixin doono shirweyne dadka Soomaaliyeed ay isugu imaan doonaan oo kun qof ka kooban inuu ku ansixiyo. dabcan inagu waa ka yaraanaynaa intaas inagu ku talagalayna deegaanka aynu joogno intaynu ka nahay Soomaaliya iyo waxyaalo kale oo duruufaha ah oo duruufo amni iyo duruufo dhaqaale iyo duruufo space meeshii qaadaysa. arrimahaas oo dhan waxay horseed u yihiin sidii geedi socodka axsaabta badan lagu hirgelin lahaa qofka Soomaaliga ama qofka reer Puntland oo xaqiisa u heli lahaa inuu isagu madaxdiisa doorto waqti cayimanna ku doorto waqti cayimanna lagu bedelo. sidaa ka warhaysaan cid walba og tahay dastuurka Puntland qabyadiisu isagoo laga soo bilaabo charterkii hore kii lagu bedelay dib u noqoshadiisa waa naga horeeyay anaga xukuumadayada wuxuu ahaa 2008 maamulkii anaga naga horeeyay waa bilaabay golaha wasaarada gudbiyay baarlamaanka gacanta ku hayay markii anagu aanu xafiiska qabanay markaa ka bacdi sida aan warar badan sheegnay iyadoo aan wax badan in looga noqdo ay ka banaanayd inay aanu badan ka eegno bacdama anagu aan ku ballan qaadnay inaan axsaab badan samayn doono in tartanka ay ka gali qayb doonaan markii mandate-ka iyagu dhamaado inaanu waxyaalaha ku saabsan democratization-ka dib uga noqono. qodobada aan ku noqonay waa qodobo la yaqaan kuwii hore ku qoraayo dastuurka oo golaha wasaarada oo baaskareeyay waa la yaqaan meelaha hadda laga hadlo oo ragga qaarkiis oo iyagu waaga golayaasha wasiirada kamid ah golaha wasaarada ay gudbiyeen waxa kamid ah mandate-ka dawladdii January la doortay inuu noqonayo 5 sano iyaga qoray golaha wasaarada hore u gudbiyay golahan dambe oo wasaarada ah wuxuu gudbiyay wixii kale oo ka bedelay oo aan taas ayeen ku jirin
arrintaas waxaa fiican inay u caddahay dadka Soomaaliyeed oo dhan ama reer Puntland oo dhan u caddahay shaki kuma jiro geedi socodkaas socda oo lagu ansixinayo dastuurka Puntland oo ah Constituent Assembly horaa loogu ansixiyay dastuuro kale oo caan ah oo adduunka dhan laga hirgeliyay dawladaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah dastuurka dawladda haddeer adduunka ugu xoog badan oo Mareykanka 1787 bishii September 17keedii waxaa lagu ansixiyay Constituent Assembly sida hadda Kenya lagu ansixinayo kan dawladda federaalkana lagu ansixin doono waxaa kaloo lagu ansixiyay dastuurka Hindiya 24 January 1950 waad ogtihiin dawladahaas baxadooda intay leeg tahay iyo waxyaalaha maagaas duruufahooda markaa jiray oo sida kuweenoo kale ama la mid ahaa ama iyagoo ka sahlanaayeenba inay tahay wakiilo dadka ah inay ansixin karaan dadka socda arrintaas shaki kuma jiro inay noqon doonto arrin cad oo muuqaal ah oo muraayad laga arkayo oo dadweynuhu ay xaq u yeelan doonaan inay dadka uga wakiil noqon doona ansixinta dastuurkooda iyaga ay ka imaan doonto taa haddii aan ka gudbo waxaa jira waxyaalo badan oo dalkan markii aanu annagu xukunka qabanay maamulkayaga hadda jira siday ahaayeen waan ka xishoonnaa waxaan ka baqnaa Soomaalidu waxay yidhahdeen haddaad wax wanaajisid nin jooga wax hagaajiya qof tagay ceebtiis laakiin annagu mar rabnaa cidna ceebayno waxaad mara ka tihiin magaalada Garoowe oo caasimadii ah markii aanu annagu la wareegnay xafiiska amniga waxaa sugayay oo hayay maleeshiya dadweynaha oo ay lacagta siiyaan magaaladu ay siiso oo ay guddi maamulaan iyadaan xukunka la wareegnay amniga magaaladaas magaalooyinka kalena hadda ka sheekayn kari maayo haddii caasimadda tahay waxaad ogtihiin inaan mushaarooyin la qaadan jirin oo mushaarooyinku muddo ay hakanaayeen waxaad ogtihiin in khilaafyo siyaasadeed ay jireen waxaad ogtihiin in ciidamadii ay kala daateen oo aan gacanta dawladda ayan ku jirin oo aan gacanta lagu hayn oo ayan urursanayn oo mushaar ayan qaadan jirin waxaad ogtihiin qaybo dalka ka mid ah inay gacanta ka baxeen oo dawlad maamullo kale gacantooda ay galeen waxaasuna annaga naga horreeyey waxaan inii sheegaynaa oo aanan isku faaninayn nin walibana mara ka yahay ilaahay hortiis muddadii meesha aan joognay ka hadli maayo democratization processka aanu wadno oo dadka xukunka gacantiisa lagu soo cesho laakiin waxaan ka hadlayaa maamulka wanaajintiisa wixii aan la kulannay sanadkii 2008 markii miisaaniyaddii la gudbin lahaa inaan miisaaniyad ayan jirin waa kuwa raggii baarlamaanka madaxa ka ayaa hor fadhiya 2008 miisaaniyad ma jirin miisaaniyaddii 2009 oo 2008 la gudbin lahaa annagaa gudbinay maamulka iyaga markaanu muddo gacanta ku qabannay sicir bararku 40 ku dhawaa halkii dollar 40,000 37 ma xusuusto intuu ahaa kulli 40 buu cagaynayay maalintii aan nagu qabanay xakamayntii aanu dhaqaalaha xakamaynay sicirku isma bedelin muddo badan baa arrintaas wasaaradda maaliyadda iyo annaga madaxdayada kale iska kaashanay qaabka loo fariisin lahaa haddii dhaqaaluhu liicliico hadba gar aado dhibaato badan baa timaada dhibaatooyinkaasu waxa weeye hadba haddaan shilinka iyo lacagaha ajnabiga ah oo aan wax ku soo iibsano ayaan isku sarrifin si joogto ah marna waxaa khasaaro iyo culays ku dhacaa dadka dibadda wax u dhoofiya marna wuxuu ku dhacaa dadka gudaha muxuu ahaye dibadda ka keena wax gudaha wax u soo dhoofiya waqtiga xaadirka maalmahan arrimaha u malaynayo inay xiisaynayaan dadku inaan caawa wax ka sheegno halkan wasiirka maaliyaddana shalay oo ka hadlay waxa weeye lacagtii shilin Soomaaliga ahayd iyo dollarkii ayaa kala sicirkii caadiga ahaa ku fadhiyay kala bateen dollarkii baa raqiis noqday shilinkii baa qaali noqday waxa ku wacan waad garan karaysaan lacaga badan oo macaawinooyina oo dibadaha ka yimi oo hay'ado badan oo macaawino qaybinaya koonfur yimi kaash u galiyeen wadanka kuwa kale oo inaga dhinaceena soo galay oo mashaariicda horumarineed oo laga wado Puntland oo ah kuwa maalgelinta shisheeye oo ay ka mid yihiin xaqooyinka petroolka baaraya iyo kuwan kale oo hay'adaha caalamiga ah ay keeneen dhulka baa jira shilinkii baa marka dalabkiisi batay dollarkii baa suuqa wuxuu eriyoonayaa shilinkii sidaas ay u dhacdo markaasoo kale waxa ka faa'iideysta oo gacanta ku dhiga arrimaha qaarkood dad la yiraahdo speculators
oo wixii markaa yaraada urursada haddii dhinaca diiniyan loo eegana waa waxa loo yaqaano ribada waxa weeye duruuf jirta darteed qofkii dhaqaalaha uga faa'iidaysta si isaga maslaxadiisa ah oo aan maslaxada danta caamka ay ku jirin waad ogtihiin shalay markii la hadlay oo la sheegay waxa soo socda in lacag la keeni doono dalka lacagaha googo ay la bedeli doono iyo cidda haysata lacag cusub la keeni doono weli wada hadalka iyo wixii lagu heshiin lahaa dawladda federaalka iyo annaga shirkii halan garow la isugu yimid baanu hadal ka bilownay weli ma dhammaan maxaa yeelay mas-uuliyad baa waxay naga saaran tahay annagoo ah meesha ugu badan oo lacagtaas imaan karto oo suuqa ka geli karto inaanu ilaalino sicir bararka inaanu waxaanu isku ognahay aanu ku heshiino marka ay suuqa gasho arrintaasu waa arrin cad ninkii shilin maanta gudaha ku haysta oo aan keenin suuqa oo doonaya inuu dad kale ku dhiigshiilo iyo ragga maciishada iyagu alaabta dabeecadaha dibadda ka keena oo aan la socodsiin sicirka iyagana haddii ha ogaadeen in igsha lagu hayo shilin aan maanta bangiga oolin dadkii reer baadiyaha markii laga reebo oo dadkii reer magaalka oo aan bangiga xisaab ku jirin shilin soomaaliyana markii lacagtaasu timaado la bedeli maayo suuqa wixii ku jira meeshada ku dhimanaya nin walba ha ka taxadaro taas intaas waxaan uga jeedaa tafaasiil aan ka bixinayo maamulka administrationka ama dhaqaalaha sidii dawladdan u maamushay kan amniga wax badan baan ka qabannay waad ogtihiin cadowgii dhulkan dabcan inuu qabsado oo ku beermay buuraleyda dad badan magaalooyinka ku laayay weli hadda layntiisii wax ka socdaan gacanta ayaa in badan lagaga dhigay welina waa socotaa waana laga guulaystay waa la jebiyey laakiin weli khatartaasu inta soomaaliya inteeda kale wax ka jiraan waa ummaddu waa jir isku yaalla weligeed way sii jiraysaa ilaa dabargoynteedu ay meel walba ka dhammaato insha allahu soomaaliya o dhan waa laga dabargoyn doonaa cadowgaas annaguna waa ka guulaysan doonaa nidaamkan demoqratisationka oo aan wadno oo axsaabta badanoo loo socdo dad badan baan kalsooni ku qabin oo waxay leeyihiin war dadku haddii ay wax doortaan armaad meel xagalo aad ka soo laaban jirtay oo reer aad cuskan jirtay iyo xoogaaya shilimaada oo aad isticmaali jirtay iyo waxaas ama aad isticmaali lahayd armay hadhow caqabad noqdaan dee qofkii aan kalsooni dadweynaha ku qabini hadeerba ha iska joogo qaylada ha yareeyo waxaa loo socdaay waxa weeye in dadweyne wax doorto axsaab ay samaysmaan xisbigii guulaysta oo markaas doorashada uu ku adkaado oo isagu helo markaas madaxdii ka soo baxdo halkaa qofkii aan kalsoonidaas qabin dadweynaha waxaan u soo jeedinayaa iyagu inay wareerin doorashada gal dheh xisaab furo dheh dartan dheh cod sug dheh haddii aadan kalsoonida qabinna hadeerba iska tag haddii aad kalsooni qabtidna haddee waad soo dhowaanaysa intaas waxaan uga jeedaa kuwa hadba meel wax ka samaynaya oo waxaan meeshaan mulaaqin ahayn oo raba inay carqaladeeyaan in dalkaanu dastuur rasmiya yeesho ulajeedada kale oo dastuurkan hadda loo horumarinayo oo bisha 15 abriil looga dhigay sida guddoomiyuhu sheegayo way ku ficnaan lahayd in laga soo horumariyo laakiin meelihii lagu qaban lahaa weli dhammaystirnayn baa keenay waxa weeye puntland waxay u baahan tahay si dawladnimadeeda u adkaysato in ay dastuur iyadu ay leedahay oo dhaqan galay oo dadweynihiisu ansixiyey uu jiro marka loo yimaado shirweynaha soomaaliyeed dastuurka dawladda federaalka oo aynu ka mid nahay la ansixinayo inuu keenu jiro maxaa yeelay dawladaha federaalka isugu yimaada adduunka mid walba dastuur gaara bay leedahay dawlad kastoo gaara oo federaalka ka mid ah mid guudna waa jiraa kaa guud baa la isku waafaqay shirkii dhoweydoo garoowe inuu waafaqo keenna sababta saas loo leeyahayna horta waa inuu keenna hormaraa baaskareeya qof kasta waxaa la gudboon marka inuu xil iska saaro inuu fahmo dastuurkeenna inuu u guntado sidii loo gudbin lahaa uga qayb qaato u soo xulo dad u qalma inay kaalintaas geli karaan looma baahna inay soo galaan oo loo soo xulo dagaal ooge mid balwa xun leh mid dembiye dalka ka galay mid hadeer xiriiro la leh meelo daban oo majaxaabinaysa puntland oo doonaysa in la fakto